na ay ku doodayaan gabadhii ay guddoonsiyeen kaalinta koowaad ee ahayd quruxdii oo qof ah iyo gabadhii ay BBC-da ku arkeen inay kala yihiin laba qof, inay kala yihiin habeen iyo maalin. warkii hore war soo dhaaf. gabadhii ku guuleysatay tartanka quruxda haweenka Soomaaliyeed Saadiya Maxamed ee taajka loogu saaray inay ummadda Soomaaliyeed ku matasho tartanka quruxda haweenweynaha qaaradda Afrika. gabadhii waa lagu dhagan yahay. xubno kamida guddigii kala saarayay hablihii u tartamayay quruxda hablaha Soomaaliyeed waxay soo jeedinayaan in guddigii uu kulan degdeg ah isniinta isugu yimaado, isla markaana dib u eegis lagu sameeyo go'aankii gabadhaas lagu guddoonsiyay kaalinta koowaad. arintaasi waxay timi kadib markii waraysi gabadhu ay siisay BBC qaybteeda afka Soomaaliga gabadhii oo nooc kale ay soo fariisatay. xubno guddiga kamida na ay ku doodayaan gabadhii ay guddoonsiyeen kaalinta koowaad ee ahayd quruxdii oo qof ah iyo gabadhii ay BBC-da ku arkeen inay kala yihiin laba qof, inay kala yihiin habeen iyo maalin, cadaan iyo madow, dhay iyo dhanaan, dambas iyo dab. sidaa darteed waxay leeyihiin habeenkii waa ilduufnay, marka go'aankii waa marloo noqoy. hadday gabadhu sidaa ku tagto oo wajigii BBC-da ay waraysiga ku siinaysay ay Afrika la aado kaalinta koowaad iska daaye tan boqolaad xataa geli mayso. marka saasay waxay leeyihiin go'aankii waa dib ugu noqoy. haddii ummadda Soomaaliyeed ee ka rajo qabto weeye inay tartanka qaaradda Afrika maanta soo qaado, go'aankayagii ilduuf baa ku jiray, mar kale ha loo laabto. saasay leeyihiin. gabadha Saadiyana waxay leedahay sidaan anigu xogta ku hayo oo doodeeda kamid ah BBC waa igu kadisay xilli aan abaabulayn waraysi inaan bixiyo aanan u diyaarsanayn. haddee aanan isi soo naashnaashin bay waraysiga iga qaadeen, waana garteedo BBC-da waa garanaysaan. war iyo degdeg laga raacay waay. gabadhii waa dadajiyeen, maanta waa taa wajigaasay u yeeleen. awalna wajiga kanee lahayd laba qof bay kala tahay. marka xaqiiqda laga hadlo isku qof ma aha. gabadhaas haddee tartanka wajigaa kaga qaybgeli lahayd ma soo dhawaateen. kan laakiinse ta waa ujeedaan nuurka iyo shacniga iyo wanaagga iyo waxa ka muuqda. anigu markaan arkay habeenkii waxaan idhi war matanaha Soomaali ka dhalatay. tan hadday Soomaali ka dhalatay maxay ummadda Soomaaliyeed waa hore fagaarayaasha caalamka u keeni waayeen? Miss World bay qaadan lahayd. gabadha adduunyada ugu shidan oo ugu quruxda badan iyadaaba ku guuleysan lahayd. laakiin markaan subaxii dambe BBC-da ku arkay candhuufteydan dib u laqay, waxaan idhi salaamaad baa idhi. waa sheeko kale. marka guddigii go'aankoodii waxay rabaan dib inay u shaandheeyaan, dib u eegaan arintaasi. gabadha labadeeda sawir marka la arkay baraha bulshada dood xoog leh ka dhalisay. waxa la yiri qofatani qoftii maaha, qoftii quruxda qaaday koobkeedana ma aha. qaaradda Afrikana haddeen u dirno haddee waxa weeye meel fiican ina dhigi mayso. anigu marka waxaan leeyahay guddiga isniinta shiraya ee laga yaabo go'aankii ay hore u gaareen inay go'aan ka duwan soo saaraan. war gabadhaasi haddaba ma fool xuma. mar haddii go'aankii habeenkii hore ay gaarteen, mar haddii gar la gooyo dib looguma noqdo. xaasha wujuud. gabadha haddaa kaalinta koowaad maalintii siiseen oo ummadda Soomaaliyeed horteeda aataash ugu surteen, go'aankaas aniga ra'yigayga ka daba tag male. sideedaan gabadhu hayno ku matasho, nasiibkeena aynu qabnaa. Afrika quruxdeeda ha ka qayb gasho, wixii ay ka soo qaadana alxamdulillah. haddaynu soo guuldaraysanana hadda Brazil oo koobka adduunka qaadi weyday ma nihin. weligeen quruxda Afrika intaan u tartanay ma soo qaadin. marka lahaan jirnay hadday guuldarro soo raacdo wajigaas waji lagu qadayo ilama eka haddaynu ku soo qadnana hadda shida male. haddii aynu wajigaa wax ku soo helnana
هذا الحمد لله رب العالمين لكن قبل يالا يجبن ترتن يقان هوري لو غارينا هذا يان ديب لو ففرن انيغا وا رايغيغو